وعبدالرشيد oo live ah waan idin salaamay dhammaantiin. maanta waxaan ka hadlayaa dhowr qodob. kow waxaan ka hadlayaa madasha qaran ee isugu tagtay Abu Dhabi shirkoodii iyo go'aanada ka soo baxay ee khuseeya gobolka Mudug iyo meeshaan Daacishku kusoo duuleen oo ay qabsadeen oo madaxweynuhu hadda caddeeyey qandala. bismillaahi raxmaani raxiim. hadduu eebbahay ku roon yahay soo dhawaada gidigin waa idin wada salaamay. kow waxaa kaleeto oon ka hadlayaa waxa weeye wasiiradii booqashada ku tegay macjarka gaalkacayo maanta. ugu dambeyntiina waxaan ka hadlayaa waxa la yidhaahdo gunaanad oo aan samary ku samaynayo ama xusid ku samaynayo qodobada u baahan on fox in diiradda la saaro. maanaa anugu shacabkaan la hadlaya sababtoo ah shacabkay wax ka go-an. anu siyaasiyiin la hadli maayo, qabiil la hadli maayo, dad gooniya la hadli maayo. waxaan la hadlayaa shacabka Puntland, gaar ahaan markaan gaalkacyo ka hadlayo waxaan ka hadlayaa shacbiga iyo odayaasha waxgaradka, culimada, dadka maaragtay waxgarad waxbartay, dhalinyarada, haweenka, intaasoo dhan wax baan ka hadlayaa khaas ahaan gobolka Mudug. haddii aan ugu horreysiiyo hadalkayga maanta, shirkii madasha qaran iyo madaxweynaha dowladda Puntland markii uu ku soo noqday Dr. Cabdiweli Boosaaso khudbaddii uu ka jeediyey, aad baan u soo dhaweynayaa marka u horeysa madaxweynaha una salaamaya. marka labaad laba su-aalood ayaan qabaa. mid waa turxaan bixin ah hadalka diblomasinimada oo isagu ku hadlay, sababtoo waa nin qaran dhan madax u ah. marka isagu dabcan sida aan anigu u hadlo uma hadli karo. aniga laftaydu anigu dad jaraaxaynayn, dad wax u dhimayn hadduu ilaahay idmo. sababtoo ah waxaad adigu naftaada la jeceshahay waa inaad qofka walaalkaa la jeclaataa, waxaad naftaada la necab tahayna waa inaad qofka walaalkaa la nabcaataa. marka qofna lama jeceli, dhibaato lama jeceli. qof kasta oo bini aadmi ah, khaasatan qof kasta oo Soomaaliya ama qof kasta oo muslina. kow markaan Dr. Cabdiweli ka hadlo khudbadiisii, qodobka koowaad wuxuu ahaa go-aanka uu macnaha shirkii madasha qaran ku lamaansanaa oo ahaa nabadeynta gobolka Mudug. marka horeysa horta waxaan bogaadinayaa soona dhaweynayaa kow xabad joojinta, sababtoo ah dad masaakiina ayaa meesha ku barabaxay, ciyaal baa iskuuladii ku waayey, dad baa baayic mushtarkoodii shaaha waxay kala soo baxayeen ku waayey. horta dhib unbuu keenay, laakiin dhib la-aan ma keenin. marka dagaalka in la joojiyo waa wax qof kasta oo Soomaali ah, qof kasta oo muslina, qof kasta oo wanaaga jecel uu soo dhaweynayo, bogaadinayana.